dumarku waa makhluuqaad Rabbi inoo sahlay, waana nimcooyinka Ilaahay bixiyo kuwa ugu qaalisan. Haddaba marka aan ka hadlayno dhanka haasawaha, waxaa jira dhibaatooyin badan oo ay dhalintu kala kulmaan sidii ay u heli lahaayeen qof nolosha la wadaaga. Hormadan xiisaha leh waxaynu ku faaqidi doonaa dhowr hab isla markaana fudud oo lagu kasbado qalbiga gabadha quruxda badan. Inta badan ama sida caadiga ah, nin wal oo dhalinyaro ah waxaa qalbigiisa ku jira laba fikir oo qaldan oo uu ka qaato inanta quruxda badan, kuwaas oo kala ah inanta quruxda badan way kibi badan tahay, lagamana yaabo inay ka aqbasho codsi jacayl ama haasaawe oo aad u dirto. Sidaa awgeed, ha ku qasooyin meesha iskaga joog. Inanta quruxda badan beri hore ayay heshay wiil kale oo qurux badan oo ay la haasawdo. Sidaa awgeed, adiga sheekadaada waxba ku fali mayso oo hadalkaaga wuxuu noqon doonaa meel dabadaalle. sababaha ay ugu waaweyn yihiin labadaa qodob ayaa inta badan sababa ku guuldarraysiga damaca jacayl ee inanta quruxda badan, balse sidoo kale waxaa jira sabab saddexaad oo ah inanta quruxda badan iyadoo arkaysa waxaasoo rag ah oo qurux badan, adiga waxba kugu fali maysee ha istaalinine iska naso. Isku soo wada duuba, xalka ugu horreeya ee lagula tacaali karo ama lagu dabiibi karo mushkiladan ku habsatay dhalinta badankeedu waa kalsoonidaada oo aad sare u qaaddo. Kalsoonidu waa shidaalka uu qofku ku socdo, waayo la'aanteed guulba lama hiigsado. Waxaad ogaataa rabitaan kasta oo aadamuhu leeyahay inaan waddo roog casa lagu gaadhin ee loo samro, loo dhibaatoodo, islamarkaana aakhirka la rumeeyo riyooyinka. Haddaba si aan uga gungaadhno jacaylkeenna, himiladeennana u rumayno, waa inaan u samirnaa islamarkaana indhacadaan ku galnaa qofka aan jecelnahay inagoo dhowrkan qodob xasuusan. Xasuusno in dumarku qalbi jilicsan yihiin oo qofka mar kasta u dabacsan aakhirka ay xaggiisa u soo ciiraan, balse haddii ay mar kasta qallafsanaan iyo adayg kaa aragto ay kaa roori doonto. Xusuusno in dumarku ay ammaanta jecel yihiin. Midna ogow, mar kasta oo qofka la ammaana ma fiicna, balse waqtiyada jawiga ku habboon leh ammaan, sida habeenkii oo kale. Xusuusno in dumarku ay qalbiga ciyaal ka yihiin, islamarkaana siyaabo badan aad u soo jiidan karto, sida adigoo u samafala, hadiyado u geeya, ama mar kasta ka qosliya. Balse waxaasoo dhan waxaa saldhig u ah kalsoonidaada oo aad si heer sare u dhisto, islamarkaana aad u samirto oo aad mar walba qalbiga ku hayso maahmaahadii odhanaysay samraasadkii hela.